كقاربة واحد دقن وطهدت كعيبه سينو كشقية هبل ما تقانا هبل وحش سميه هبل ما وحكى لك شقين ماي ثم هذا وعد رئيس متشيدا إسلام لاي إذا اسمع أركو مضنا مرة يبين بقى هدي إستجل لو وريستو أما لقوا الرمانة حلاليس وقتر بيعان لاي قف مسلم عيبيس الدبق لي إلهي با أنتو أدنا تهذا دبقلو أقل كاغا قديه سكوكو عيباني يسوقي بنان كنتا لقارين بقى maxaa marka adiga dadkan muslimiinta ilaahay abuurtay horta dadii muslimiinta mid inaynu fahanno waa shay muhiim ah dadkan muslimka Allah abuurtay ee arladan dusheeda jooga war waxaad isweydiisaa adigu maadan abuuran ilaahay baa abuurtay ifka keenay mana arsaaqdid adigu ilaahay baa rizqiisa ay cunaan korkaaga kuma socdaan dusha kaama saarna dhulka ilaahay baa maxaan ku iraahdaa dul saarayhiin oo ku nool yihiin oo ka shaqaysan rizqooda kala soo baxaan maxaa adiga dadka muslimiinta kugu saliday marka ma iska dhaaftid Soomaalidu wuxuu ku leeyahay aniga heba qofka la yiraahdo jinkayga necib ku leeyahay war jinkan baad dadka ugu diray waa maxay qof aan dhiig iyo dhaqaale midna dhiig iyo dhaqan kaaga maqnayn buu ku leeyahay hebel aniga waa ka dhaxarkani oo muxuu kugu sameeyay waa iska nacib haba oo maxaad ku nacibtu ku yeelay ma dhiig buu ku ka galay ma dhaqan kaagu wax yeel maya niyo soo qofa iska nacib ma jiro ha waa iska nacib ku leeyahay ajaib waa isma jeeda islaan laay maxaad ku nici isweydiiyo maada abuurtay maada arsaaq ma korkaagu saaran yahay ma rizqaagu cuna dhulka ilaahay buu ku socdaa ilaahay ummadiisa u nabadgeli afkaaga iyo adinkaaga ummadda muslimka ka nabad gasho hal qaacidana waan ku sheegaya waliga hadartana badbaadi qaacidada qaado qof muslim ah hadii aadan tala wanaagsan oo adduunkiisa uu ku meel mariyay aadan u sheegin tamaraad ku dhaanto oo dhaqaale ahna aadan siinaynin nabad afkaaga iyo adinkaaga ka nabad galo waxba tarimaysi Soomaha af iyo maal wax ma ka taraysa maya nabadgelyada marka dhiigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa u nabadgeli haka nabad galo arsaaq ka marhaba adiga albaabkaaga soo garaaci ma subax walba ka ilaahay buu garaacaya ilaahay baa siinaya wax subhanahu wa ta'ala dadka muslimku haday saa fahmi lahaayeen mudwa kala nabadgeli lahayd laakiin Soomaali baan nahayo inaga kabaheen cunayna iscalaashanayna waxaan hore u marlayna waxaas weey